إن حافظنا واحد تاريخ آدي وفعوين كل هذا هي dadkii ama carabta ahaa ama Soomaalida ahaa muddo ka badan 100 sanadood ka hor u soo haajiray wadankan Hindiya tafiirtoodii ayaa xaafadan aad si weyn ugu arkaysaa iyadoo raadkii taariikhdana ay wax ka sii jiraan oo tusaale ahaan Yamanidoo kale ama Soomaalida dadka tafiirtooda ay tahay ay macawisi xidhan yihiin luqadihii ayaa aad iyo aad ay isugu liitaan laakiin dadka intooda waaweyn ayaa taariikhdii wax ka haya guriga nimankan galayo waxa ku nool nin la yiraahdo Xuseen Soomali oo xaafadan aad caan uga ah wuxuu ii sheegay in tafiirtiisu ilaa 100 qof imika ay ka badan yihiin Xuseen awowgii ayaa waqti uu ku qiyaasayay ilaa 1890kii yimi wadankan Hindiya Xuseen bal hadda dhaqankii Soomaalida wuxuu ka hayo ayaan ka wareysan doonaa iyo waxa uu ka yaqaano laakiin arinta kale cajiibkii waxa weeye in Xuseen uu noo kala turjumayo maadaama Soomaaligiisu waad yaad u liito nin isaga asalkiisu uu Hindi yahay asalkiisu markaan leeyahay Hindi yahay aabihii waa Hindi Shakiib Cabdi Jibaar baa la yiraahdaa aabaha iyo aabihii bank Hargeysa ka wada shaqeyn jireen Shakiib hooyadiina waa Yamaniyad Shakiib ilaa dugsiga sare waxa uu ku dhameystay magaalada Hargeysa dabadeedna wuxuu isku tilmaamay isagu inuu Soomaali yahay Shakiib baa noo kala turjumaya bal hadda Xuseen waxa taariikhdii uu ka hayaan eegno waa guriga Xuseen uu degan yahay bal hadda Xuseen baan arrimaha aan idin sheegay kala sheekaysanayna السلام عليكم حسين سكورن سمو wanaagsaneed حسين aniga Cabdisalaan Herri baa la yiraahdaa television universal la yiraahdaa ayaan ka shaqeeyaa af Soomaaliga ma taqaanaa ninkan waa ninkan idin sheegay Shakiib Cabdi Jibaar walaal Shakiib iska waran soo wanaagsanay khayr weey sheekadeenna iska bilaabanaa fariisana guriga waxa degan Xuseen iyo qoyskiisa qaar kamida Xuseen waxaad ku tahay Shakiibow aad iyo aad baad u mahadsan tahay in gurigaaga aad nagu marti qaaday आपको बोलते बहुत बहुत शुक्रिया आपके घर में हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया और चाय पिला दिया और ये दिया खाना भी है तो खुले ये है उनतन हो गए तुम पैसा أدي أبغى ما تصنتي ده बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए वह वे नोमा हाँ नगा वह उम्मीद नगम में दा आया था सोमालियत और नसोब हो गई af Soomaaliga Xuseen muxuu ka yaqaan horta magaciisu waa Xuseen Soomaali oo xaafadoo dhan uu caan kaga yahay af Soomaaliga muxuu ka yaqaanaa आपको बताएं आप मशहूर आदमी हैं पूरे दुनिया आपको जानती है नाम से लेकिन कोई नहीं जानती कौन है हुसैन सोमाली आप सोमाली लैंग्वेज से कहा जानता है सोमाली लैंग्वेज में कहा जानता है आप Skowran nabad wariya fadhiisu magciisa magaca inta uu sheegay ayuu ka yaqaan Soomaaliga taariikhdii familygooda iyo goortii halka yimaadeen ha inooga sheekeeyo आपको मालूम है कुछ अब देश में जो आपके दादा यहाँ आया और 1965 में शादी 1865 के ayuu awowgii soo galay waa 1865kii ayuu ugu yimid ها वक्तिगाas xaguu ka yimid किधर से आया दादा नूर अहमद मगन जो है तो बरबरा मुल्क सोमाल बरबरा gatiitalay ayuu ka soo jeedaa buu yidhi berberow ka soo dhoofay awowga maxaa la odhan jiray आपके दादा का नाम क्या था नूर अहमद मगन nuur axmed magan marka sababtu halkan u yimi maxay ahayd क्या सबब था तुम्हारा दादा को इधर आने के लिए इंडिया में यानी ब्रिटिश का दौर था जब और जो निजाम गवर्नमेंट था इधर यहाँ पे सब सोमाली यमनी सब आते थे जेश में थे हाँ كل هاوجي وحها أرمجي सोमाली दिगना वाकी ब्रिटिश का كاسا كلته واي حق بقرطوية هاي دلبتي ciidamada ayuu ka mid ahaa meelaha kale ciidamadu ka yimaadeen waqtiga और किधर से दूसरा हम सोमालिया की तरफ से और किधर आए इधर यहाँ पर हाँ यहाँ पे मजरतन आए डुलबहंती आए थोड़े वर्संगली आए
और खबर जालो वहाँ पे भी है, इसी गार्ड में है। كل هاي ملك الديوان أو قبائل الديوان بايمي حافظ كله أنت بوي ولا دينتين من تشوفن عروض ولا شفتها on يجوا هذا أب سومالي جرنين أو قبيلة جرنين هذا اسمه مقعبة هندي لكن حافظ لي هذا أي سيجار واحد ده ميت كيلو يسمونه الصومالية قبائل كل شيء لكن دتك سايكتر سراين مشارتين ورسنجلي والبهانته ورسنجلي भी आए थे और खबर जालो भी है खबर चालो كله واحد صدوم وجي مادين لكن their grandfathers they pass away but this new generation they don't know about the trust and that one jiilasha cusub wuxuu yiri dadkaas ay ka tageen imika ma yaqaanaan halkay ka soo jeedaan laakiin intii waa weyneyd ayuun baa taqaana deedna awowga imisa qofku ka tagay आपके दादा जब इधर आया हाँ कितना छोड़ दिए चले गए इसको आप लोग को कितना आदमी लोग थे आप लोग फैमिली से खानदान से ये हमारा जो है बाप था हसन बाकी सब मर गए थे हसन की औलाद हमें मोहम्मद अहमद हुसैन अहमद मर गया मोहम्मद है हुसैन दो है انت كتجيب اوجي imisa qof يا waxaan hayn la shaqo qof way sheegay मेरी औलाद alhamdulillah leeyahay anigana awlaadkaygu waxa weyn waa 8 boys and 3 girls waa 8 wiil iyo 3 gabdhood afid fatra badri all markaan anigu waxaga ku tiriyo waxaga markaan ku tiriyo iyo inta intu dhalay iyo intii sii dhaleen ilaa waxaan nahay 45 qof ما شاء الله ما شاء الله waxaad ku tiraahdaa waxa la ii sheegay isagu inuu abtirsiimadiisa yaqaano का इनको बोले मिस्टर हुसैन मशहूर है और मशहूर से भी ज़्यादा इसको आता है इसकी दादा की दादा की नाम वो हमको बता सकता है बोलो शेख हुसैन हसन सईद नूर अहमद मगन समक्काब रोबले अबार उगाट उमर अब्दुल्ला इस्माइल अर्रे सईद गरहजिद हबरनूर उगाट उमर रेर हारून अहमद ما شاء الله ما شاء الله وحي دون هيا sidoo ku bartay de अब जब आपने यहाँ पैदा हो गया और इतने पूरे नाम कैसे मालूम पड़ा आपको हमारा बाप माय फादर हाँ aabahay ayaa nooga sheekeyn jiray oo noo sheegi jiray waxyaalaha isagu ma tagay Soomaaliya आपने सोमालिया कभी भी किसी दिन गया सोमालिया नहीं गया मैं टिकट दो बच्चे गए थे मेरे laakiin labada caruur ugu waaweyn Abdullah iyo Abubakar ayaa hargeysa tagay waxaanay la dagaayeen ilmo falaax महमूद डेरे से मिले वहाँ पे उगाड़ उमर शेख महमूद डेरे उगाड़ उमर kana way la kulmeen buu उसका वाइफ बल्दिया में काम करता waxa la ii sheegay in hablihiisa qaarkood ay Soomaali ka guursatay वो क्या बोलते हैं मैं सुना आपकी बेटी लोग भी सोमाली से शादी हो गया सोमाली एक दो बच्चियां इसाक से करा एक अब्दियार जो लंदन में है लंदन का पासपोर्ट है उसका बरतानिया का और एक बिल्किस है वो जो है रबी फल्ला कनाडा में उससे एक बच्ची हमारी यमनी देती है sadexdeeda gabdhood midna yamani baa qaba midna rabiic fallaax baa qaba midna london bay degan tahay cabdiyaar saaxiib baan ku dhahay वो बोलते हैं cabdiyaar तुम्हारा बेटी का बड़े है मैं मेरा दोस्त है shkiwa waxa aad weydiisaa dawladda hoose doorashooyinku isu taagay axsaabtu ka tirsan yahay meel la doortay isaga marna जो इलेक्शन आती है आप हमेशा खेलते हैं इसके लिए क्या लोकल गवर्नमेंट है या कौन से पार्टी है यानी स्टेट गवर्नमेंट waa state government waa okay maamulka gobolka yani television party Chandrababu Naidu waxa way inta aanay kala baxin Hyderabad waxa loo jiray Andhra Pradesh laakiin hadda way madax banaanaatay waxa la baxday Telangana state intaana Telangana state ayuu xukuumadda qayb ku lahaa cod ku lahaa laba jeerna wuu soo bandhigay laba jeerna kumunu guuleysan waxaad weydiisaa kale waxaa la ii sheegay in dadka asalkoodu Soomaalida yahay inay jiraan qaar kale oo meelo sare dawladda ka gaadhay वो क्या बोलते जितना आप लोग सोमाली में है यहाँ ये है और सोमाली लोग जैसा
कमिश्नर ऑफिस बन गए, बड़े बड़े ऑफिसर थे हैदराबाद में। एक जो है खबर अव्वल है साद मूसा, उसका कबीला है, वो जो है इब्राहिम, उसका मूसा इब्राहिम है, मूसा इब्राहिम वो जो है। दूसरा और एक भाई उसका जो है वो सईद इब्राहिम DCP है, DCP पुलिस को नकदी मदह नकदी हैदराबाद। और दूसरा अहमद हसन फारा जो है वो रिटायर होगा, बुढ़ा होगा, अहमद हसन फारा वो भी DCP था। इसे को ना DCP पुलिस का, हाँ इसे को ना DC पुलिस का यो वहाँ। waxaad tiraa sidan uu isagu imika u yaqaano xuseen oo magaciisa xuseen Soomaali yahay, caruurtiisu ma u yaqaanaan halku ka soo jeedo? जैसा आपको आपके कबीला मालूम है, आपकी सोमाली का लैंड मालूम है, ये सब मालूम, आपके बच्चों को इतना कहा मालूम है? हाँ मेरे बच्चों के बच्चों को पोतरों को मालूम। पोतरी जो है खुदन नाम है उसका, उसके लिए बुलबुल बोलती पूरे कबाइलों में। وكله عروت إذا كسكو عروت السيد لين أيها سيا خانة وعلا هي أنت السيد الشيء أيها دي بدها وقصة كسان वो खुदन छोटी बच्ची है। वहाँ वही नंबर कितने साल की है वो? होंगे 11 साल 10 वाह खूब से बच्ची हुई हैं दि بدها هم تقول بعد أيها عروت كلا وقفان تا أنا وحنا هاي so ما شاء الله. ما تعلن لهاي نتقو गठीतले आपको कोशिश आती है और जाने के लिए गठीतले विजिटिंग के लिए सोमालिया इंशाल्लाह जाएंगे। हमारा मुल्क है क्या बात इंशाल्लाह waan ku tala jirnaa waayo waa meel aan ka soo tafarrucnay ilmaha yarna waxa la ii sheegay inuu awoow yahay oo inantiisu ay dhashay ये बच्चा आपके बेटे की है नहीं बेटे का है पुत्र inankiisa dhalay नाम बोलो तुम्हारा नाम बोलो बेटा हां शुएब मूसा सोमाली शुएब मूसा सोमाली शुएब मूसा सोमाली ما شاء الله فريد شعيب موسى الصومالي isaguna garanaya uu garanaya qabiilkiisa jee uu dhigaa sidii isaga loogu dhigay ayuu isaguna बोलो शेख बनी साहब खबर यूनुस ले हारून अहमद ما شاء الله waxaan jeclay intaynaan sheekada ka bixin isagoo xuseen aad iyo aad u mahadsan bal hadda shakiib qudhiisa inaynu ka yara sheekaysiino. shakiib sidaan idiin sheegay aabbihii asliyan wuxuu ka soo jeedaa waddanka indiya, hooyadiina yamaniyad bay ahayd oo yaman bay ka soo jeedaa. shakiib isagu wuxuu isku tilmaamaa inuu yidhi Soomaaliya waana yahay. shakiib isku xaafad baanu ku dhalanay sidii furitaankii barnaamijkaan idinku sheegay. shakiib aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in mar kale Hyderabad aan ku kulanno. shakiibow maystirida adduunyadan aadka isugu furmaysa adigaba tusaale oo ah hindi iyo yamani iyo Soomaali. wallaahi run ahaantii aad waxaan ugu faraxsanahay aniga oo walaalkeen 35 sano oon kala maqnaan oo maanta isgarab fadhino. cabdisalaam waxaan kaga soo tegay isagoo maxaan miishaga isagoo 9 jira maantana waa adiga arkaysa waxaad moodaysaa inaan ka yarahay orwa dadkiina garanayay muddo intee lag halka deganaaday markaa shakiib? waxaan deganaa 35 sano. 35 sano sideedin ka soo baxay Soomaaliya. markii aad timi adigu afindiga ma ku hadli jirtay? waan ku hadli jiray afindiga Soomaaliya waan ku wada hadli jiray. gartay marka wax dhibaato kalamaad kulmin inaad halkan la qabto inkastoo ay Soomaalidu ku yareen يا هبين كمان مسكين يسيري هاي isla hadli jiray anaa isla hadli jiray Soomaaliga saan u duubin هاي دايما كل soo batay marka aad waxaad ii sheegtaa markii Soomaalidu halkan markii aad halkan tibay ugu horeysay shakiibo maxaa kuugu daraa xagga la qabsiga maadaama ahayd markii ugu horeysay xaggan timaado? wallaahi walaalkayow gelin waddankiisa ku soo laabtay waxaan dhibaato la kulmay ma jirin laakiin Soomaalidii markii yimaadeen ayaan dhibaato kala kulmay. qaar caaya waa tahay sako caaya qaar ilaawan ana doonan jiray marka muuqaalkaagana Soomaali ku moodayay markaasaan wana aad uga saan odayga hindiga
هاي 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 waxyaalo badan oo ka sheegi karan xaggan dabadeedna marka dambe ay ogaadaan inaad nin Soomaali tahay ogaadaan bay alla hada naga raalino هاي 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 waxaad ka warantaa imika adigu gabadh hindiyada waad guursatay ما شاء الله laba caruur baad leedahay adigu kuwaad dhashay sida kuwan Xuseen awoogu u yahay ama u dhalay ma yaqaanaan inaad Soomaaliya ka soo jeediyo Soomaaliya Soomaaliya way garanayaan ka soo horjeedo ee waxaan yaqaanaan ay iska waran nabad inta inta soo markaan هاي 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 waqtiga aan kula hadlaa Soomaaliga ayaan jirin gartay baan jirin waa school tuition quraankii bay ku wada bixiyeen ayaan ka haddana around the children ayay isku yimaadeen xaafadda